السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفت بدن فرحان ينور القروح بدن بايدين رجعين أيانين كان دلنيرتا يوحو يري فرصة ذهبية أو قروح بدن أيا يهورتا الله لكن وحي عيلي حبين كاي قطرانك سيغاديان سمين جري ينفتا إذا سيديان وقول الله فري أما نقو عياري وحو يري مدى قاريسا تضبية 10 سنة أيان سيغاي سنة imikana gabadh ayaanu isjeclaanay dhaqaale fiican leh dadkoodu dhaqan yahay oo dhisan yahay iyadu dhaqaale wanaagsan leh aqoon leh iga aqoon badan iga dhaqaale badan nolol aad u qurux badan ku jirta oo kaliya u diyaaray inaan guursado ayaan maalin kasta aan guurkeeda dib u dhigayaa oo aan joojinayaa waxaan u joojinayaa waxaan isleeyahay ma qancin karaysid oo gabadhaas haddii aad isku doonato waad ku ceeboobaysaa ama waad ku fashilmaysaa xubinkaygu aad buu yar yahay tamartiisuna ma badna biyo bax degdegana waan leeyahay nolosha aadka u quruxda badan waxa iga hor taagan siigadii aan samayn jiray siigada waan joojiyay haddana maalin kasta waan ku soo noqonayaa inta aan joojiyo markaan sharci gaadhaba haddana dib waan ugu laabanayaa anoo gabadhii la sheekaysanaya oo isla mustaqbal baa haysata gabadha isku gaaxi gabadha isku kaydi gabadha guurso awoodaada dhis ayaan haddana fashilmayaa buu yidhi maalin kasta waxay igu dhacdaa inaan dib u murugoodo inaan ka qoomameeyo in go'aankayga baaba'ay u dhabarkayga jabiyo xataa mararka qaar waxaan isku dayaa buu yidhi inaan iska fasaxo si aanan waqtiga uga ridin oo nin kale ay u raadsato oo guursada maadaama aan isjeceshay anna aan jeclahay haddana arrintaas ayaan dhinacan u dhaafo aan garan lahay aad buu mahadsan yahay wuxuu ka mid yahay dhalinyarta inta badan aynu kala talino aafadaas in badan inagu soo celceliya aafadaasi cawaaqib xumada waaweyn ee laga dhaxlo waxa ka mid ah inuu ninku guurka ka baqo iyo inuu guursan kari waayo iyo xataa sida imika ninkani sheegayo fursado waaweyn inay iska hortaagto oo nolol qurux badan oo markaa doonayo inuu ku dhaqaaqo inay ka hor imanayso waxaan kugula talinahay mar haddii ay ku diyaar tahay ay ku jeceshahay dhinac kastaba ay tahay fursad qurux badan inaad adiguna taladaada iyo go'aankaaga sida ugu dhaqsaha badan aad u qaadato oo waxaan foosha xun ee aafada inaad joojiso inaad isnafaqayso inaad xubinkaaga inta ilaahay ku siiyay aad ku qanacsanaato haddii ay markaa haweeneydu ku jeceshahay xubin yarna kaaga tegi mayso awood daciifana kaaga tegi mayso wax kalena kaaga tegi mayso ee niyada khayr u sheeg oo si wanaagsan isku dhis oo niyadaada fiicnaysiiso oo markaa kalsoonidaada sar u qaad nolol qurux badan baan idiin rajaynayaa guur wacan baan idiin rajaynayaa waxaana ilaahay kaaga soo baryayaa adiga iyo kuwa kale dhibanba in caafimaad taama oo aafadaa foosha xuna in ilaahay dabayl caafimaad uu ka mariyo oo adiguna iska joojiso ilaahayna ku waafajiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.